بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan marka hore aad u salaamayaa intan isugu tibi halkan hadii beedikeed ku leeyahay xigaalka ah hadii beedikeed ku leeyahay odayaale ee cuqaal leh ee dhalinyaro ee qoonyahan leh ee xafladan abaabulay ee isxilqaamay ee gudi leh ee madax dhaqameed leh oo waliba anagoo aan in badan ba waxa weeye hadii beedikeed ku leeyahay shaacin oo aan dad badan ba ururin ay dadkan yihiin intiisa soo xilqaantay ee hawsha وهذا وحيد marka ugu horeysa idinka aad baan idin salaamaya sharaf baa mudantiin si wanaagsan baan sameeyeen waxaan kale salaamaya hadii beedikeed ku leeyahay halkan fariintayda doonayaan ka gaarsiiyo beesha aan metelay Muuse Ismaaciil Galbeed qolqol joog iyo qurba joogba waxaan idin leeyahay ilaahay haydin barakeeyo fariintaasuna hadii idin soo gaadho kiina TV ka daawan doonaana insha Allah si khayr leh u qaato kiina waxa akhriyo journal ka akhrisan doona ama hadii beedkeed social media duna insha Allah taageeradiina ayaan filayaa intiina aan waxna akhriin TV-na daawana insha Allah halkiina ayaan loo idinku iman doonaa aan idinku baarigi doonaa anigu hadii insha Allah waan guuleysanayaa hawshan ana iga timi ana jecel maaha wax la igu soo riixay maaha wax ay cidi tiri hebel iyo hebel wasadayeel de halay taageero dadku ay ugu dhiiri galiyo laakiin waligayba inaan hawshan qabto aan umadayda wax u qabto way igu jirtay waxayse igu sii xoogeysatay xilliyadii dambe wax weeye doorashooyinka aynu ka soo baxnay ma sha Allah sanad bay imika soo socotay waa laga dheerigsan yahay meel kasta way gaadhay social media-da way gashay wax qabadku yuusan buurnaano de wax weeye socodku iska yaraado abaariya arrimo lagu jiray iyo hadii beedikeed ku leeyahay geed kastaba in gubta hoosta leh haba iska jirtay laakiin waxa weeye dadku way ka warhayaan waxa weeye warkeeda way hayaan hawshaas insha Allah shirkani marka waxa weeye uu qaban qaabin iyo taakulayn iyo isxog wareysi iyo in halkii caleema saarku uu dhici lahaa waxa weeye insha Allah aanu hadii beedikeed ku leeyahay la wadaagno iyo waqtigii iyo hadii beedikeed ku leeyahay hawlahaas oo in badan bay dadku lahayn dawgaaskan Facebook baan horta ku aragnay warka miyaan laba soo ururinaynin goormay soo ku faysa marka insha Allah hawlahani waa hawlihii qaban qaabada waayahay beesha insha Allah waan ururin doona ilaahay baa wax ururiye laakiin kullayba de nin aad taqaaneen baanahay waan idin dhex joogay nin dhaqankiina idin la garanayaanahay nin cusub oo maanta hadii badi bafleynaya ma ihi nin gobolka laga yaqaanaanahay nin maanta tacliin daro ay hayso ma ihi oo ninka update ka aad leedihiin social media-da iyo Twitter-ka iyo Instagram-ka iyo Facebook-ka iyo bal website-yada nooga waran maxay qoreen baan hayo caalamkan la socdaa hadii beedkeeda ku leeyahay ma ihi nin hadii beedkeeda ku leeyahay maanta isagu doonaya inuu wax ka urursado laakiin waxaan hay waxa weeye nin nafiyo maal bay idin la wadaagaya waxaan kala ururin doonaa beelweynta Muuse Ismaaciil Galbeed ilaa xirxiray u kala hoyatay waxa weeye habar yoonis insha Allah waxaan kala sii ururin doonaa intaas oo kale kuma koobniyay beelaha gobolka Togdheer ku nool oo dhan waxa weeye waxaan u noqon doonaa ama aan ku beeri doonaa kuwa mideeyay had iyo jeer soo jeeday wanaaga jecel ee aan xumaanta iyo sharka ka shaqeynin insha Allah okay intaas marka inta noqoto waxaan doonayaa in aan horta marka ugu horeysa idin la wadaago waan ku soo gunaanadayaa Sultan Khadar waan ku soo gunaanadayaa waxaan doonayaa inaan idin la wadaago hawsha caleema saarka iyo sida ay u dhici doonto horta hawluhu way iska farabadan yihiin oo deemiye magaalada waa la joogaa dadka waxa weeye hawsha ka soo qayb gali doonaan iska farabataan baa laga yaabaa waxna had iyo jeer hadii waxa leeyahay waxa weeye degdeg wax farabadan ma dhalo dadku had iyo jeer waxay jecel yihiin wax markiiba waxa weeye inta lagu caana shuba la yiraahdo hebelgaas ba halka lagu doorto wararta inuu ku xisaabtanay marka hore baashan ugaasnimada madax dhaqameedku waa dhowr qaybood nin aabihii baa uga tagay halka soo fadhiisuun baa la yiraahdaa oo lagu caana shuba inta dadka loo ballamiyo oo geed hoosti la isugu keenaa baa la yiraahdaa hebel dhibay ama socoy ama waxa weeye tamar gabi hebelow daada inankiisa kaalay fuul markaasuu dadkana ariyu leeyahay mooda midna waa nin la soo baxaya midna waa nin la soo baxayo inuu dadka dhex maro oo shukaamiyo oo
haddii bedekeed kulay arrinkiisa adduunkiisa waxa weeye uu dadka galo oo haddii bedekeed kulay uu soo ururiyo waliba saasay marka horena waxa weeye lagu yar kala fiirsana marka waxa weeye had iyo jeer maadaama ay ururis badan u baahnayd ugaaskuna uu ahaa kuwa la soo baxaya nin looga dhintay uusan ahayn inay waqti iska qaadataa waa macquul laakiin waxa weeye insha Allah waxa ay caleemasaarkaasi u dhici doonaa simigu iyo miisaan bale dadna waanu ku xidhanno dad baa waxayna lolaho dhinac kastaba haday noqoto adduuniya haday noqoto arrinba kulliba waxa weeye laga warsugayaa marka insha Allah taas waa taa waxa aan doonayaa inaan ku soo ururiyo anigu Muuse Ismaaciil Galbeed leeyahay madax dhaqameedkii ugu horeeyay waxa jirta cuqaal soo jireena oo ana aad u jecel lahay waxa jira chief caaqilkii oo la wada garanayo ka ab waxa jira suldaan Khadar oo maanta haddii bedekeed kulay suldaankii reerkii ugu horeeyay ahaa oo isagu maanta xanuunsanaya waxa jira garaadkii oo isagu imika shaqeynaya oo u dib jiray hawlaha Muuse Ismaaciil Galbeed oo dil wada ogiyo odayadii wata aniguna ugaaskii oo imika soo kordhay baan ahay tira soo kordhayna waa tayo soo kordhay waa halku dhageyga ma yihiin wax xumaynaya laakiin waxaan inaan waanfici doono waxa la yiraahdo jeer dadku hada jeer markay wax cusub arkaan way ka didaan qaar badan qaar way sharaystaan qaar way nacaan qaar way ku soo dhiiradaan qaar way la shaqeeyaan qaar way duryaban war waxay doontaba ha noqotay horta waxa weeye barasho horteed hayn dhicin baa la yiri insha Allah dhamaantiin waan idin kasban doonaa waxaana oo aakhirka ay ku dambeyn doontaa Cabdi Qaadir Faarax Cilmi waa ugaas cadaaliyo waxa weeye maanta aan ku kalsoonahay bay ku dambeyn doontaa waxaan doonayaa inaan halkan ugu dambeynta ka xuso suldaan Khadar oo xanuunsanaya oo adogtii suldaankii reerka ugu horeeyay intubana isyaanada aniga weyga leeyihiin dadku hada waxa weeye insha Allah waxa weeye waa Xuseen Ismaan Dhoof waa garaadka imka shaqeynaya suldaan Khadarna waa garanaysan labaduba weyga leeyihiin isyaanadoodii weyga horeeyay anigu imkaan ku soo biiray aqoonyahan kastaan haado iyaga aan dhiso aan taakuleeyo aan soo saaro aan hawshooda u dib jiro iyaga laftoodana imika ima diidana ima